qaraxani oo mid aad u xoogan ayaa waxa uu saakay ka dhacay guri ku yaala xaafadda Xalan ee degmada Wadajir kaasi oo ka dhashay min 4 ruux ay ku diyaarinayeen isla guri ku yaala degmadaasi Wadajir waxaana la sheegay inay ku geeriyoodeen qaraxaasi 4 ruux oo ku sugnaa guriga uu qaraxa ka dhacay sida uu warbaahinta u sheegay maamulka degmada Wadajir gudoomiyaha degmada Wadajir Ahmed Xasan Cabdo Ahmed Daaci ayaa warbaahinta ugu warbixiyay qaraxaasi isagoo sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen 4 ruux oo ku sugnaa guriga qaraxa uu ka dhacay waxaana intaas ku daray gudoomiyaha in dhowr qof oo diris la ah guriga mashaqada ay ka dhacday ay ku dhaawacmeen qaraxaasi gudoomiyaha degmada Wadajir ayaa xusay in ciidamada ammaanka ay hadda howlgal ka wadaan guriga uu qaraxa ka dhacay si loo ogaado macluumaad la xiriira qaabka uu dhacay qaraxaasi iyo waliba waxa la damacsanaa dhagar qaabiyaasha ahay arintay maleegayeen laakiin ilaahay ka badbaadiyay ummadda kale iyo shacabka deegaanka shilkaas wuxuu dhacay xala 12 saac iyo bar isla markii ciidamada nabadgelyada dhamaan haday boolis ahaa lahaayeen iyo haday kuwa maamulka la shaqeey ahaa lahaayeen kuwa militariga ee deegan bahday ahaayeen dhamaan arintaas si degdeg ah ugu baxeen waxa ku dhow geeriyooda meeshaas 4 qofood oo qolooyinkii maleegaya dhibaatada oo ka shaqeynayay nasiib wanaag shacabka kale wuu ka badbaaday waad aragteen oo badan waa lagu qabtay meesha qaraxay dadka la damacsanaayeen iyaga ayuu baabi'iyay marka kuwa dhihi jiray waa ku guuleysano annaga ka dambeeyna dhihi jiray iyaga soo diray haddana ha yiraahayno annaga ka dambeeyna ha yiraahayno sidoo kale waxa isna qaraxaasi ka warbixiyay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Madaale waxa laga helay bamka gacanta laga tuuro oo 18 xabadood ah waxa laga helay direes ciidanka xoogga dalka oo ag direeskiisa oo 4 joog ah darajo ay ku xiran tahay koofiyad ay ku xiran tahay darajada gaashaan la sare oo ah tan ay qaataan ciidanka booliska dableyda ama booliska military loo yaqaan iyo hal darajo oo ah gaashaan la sare oo ah midda garabka lagu qaato waxa kale oo laga helay 3 shaar iyo hal surwaal oo dharka booliska kaba ciidan iyo rasaasta RPG7 hal xabbo oo ah booshaska qaarkood waxa laga helay waxyaabaha qarxa sida goobta dambiga ka dhacay scene of crime marka ciidanka booliisku sameeyeen noo muuqatana saacadda qaraxu dhacay gacanta lagu hayo isku xirxirkiisa baaristu waa socotaa dad baa tuhun loo soo xiray wixii ka soo kordhana Maxamed Ibrahim Gabo Royal TV Muqdisho